وما سنتنا خياري قرين وحن وهم بلينا رئيس الوزراء عصب لو أنسحي الصومالية مدن حمزة عبد البر sidoo kale waxaan rabaa maanta inaan farxadda la wadaago una mahad celiyo saaxiibadii codkaysiiyay golaha shacabka wareen gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan oo runtii si xilkaasnimo leh xilkan igu magacaabay ana uga mahad celinayo iyo labadiisa ku xigeen sidoo kale waxaan si gaar ah iyagana ugu mahad celinaa xildhibaanada codkaysiiyay oo runtii tixgelin gaar ah iyagana aanu hayo saadogtiin habdhowrku waa habsami u socodka baarlamaanka iyo nabadgeliyada iyo muxuu ahaa maamuuska guud ee baarlamaanka uu ku taagan yahay waa xafiiskan muddo dheer ayaan ka soo shaqeynayay waxaana rajaynayaa aniga oo aragtiyii hore kaashanaya inuu noqon doono dowrkani kii ugu shaqada wanaagsanaa iyadoo cilado aad u fara badan maalmahan ay jiraan oo ay tahay baarlamaanka ku cusub xarunta dad aad u fara badan ay ku imanayaan hab martiqaad ahaan aan wanaagsanayn iyo nidaamka oo u baahan sidii baarlamaanka u fadhin jiray in dib loogu soo celiyo ayaan iyadana tixgelinaynaa waxa kale oo tixgelinaynaa xildhibaanada wixii aragti dheeriya aan xusuusano kamida waxa uu xildhibaanku u baahan yahayna inaanu u dhameystirno haday noqon lahayd wax macluumaada iyo haday noqon lahayd wax adeeg u baahan yahay intaba inaan dhameystiri doono ka xafiisahan waxaad ogtiin xafiiskan shaqaalihiisu inay kuwa ugu shaqada badan ugu hor yimaada oo xaadirinta xafiiska ayaa sameeya ugu horeeya hadii ay wufuud baxayaan iyo hadii wufuud iman hayaan baarlamaanka ayaa qaabilsan amniga xarunta iyo muxuu ahaa munaasabad ahaan waxa qaabishan xafiiskan runtii marka waa xafiis aad u baaxad weyn sidoo kale xafiisku wuxuu qaabishan wax walba oo sida xeeroosaadku tilmaamayo uu gudoomiyuhu kolka adeeg ahaan ugu dirana wuu qabtaa xafiisku runtii waxaan aaminsanahay anagoo ka faa'iideysanayna khibradii aanu hore uga soo baranay intii naga horeysay iyo fursadda hadda la siiyay anagoo ka faa'iideysanayna inuu isbedel maalmaha soo socda ka muuqan doono golaheena haday noqon lahayd baraneriga iyo haday noqon lahayd hab macluumaad wadaagidda golaha oo runtii aad moodid in wali wax u dhiman yahay waayo marxalad bilow lagu jira taasna waan dheelitiri doonaa waxaana leeyahay qof walba oo golaha ka tirsani hadduu xildhibaan yahay inuu ku dhaqmo hab macluumaad ku dhisan hadduu yahay qof hawlwadeenana inuu siiyo waajibaadka uu leeyahay xildhibaanka oo tixgelinta sida isagaba loo siinayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin maalin wanaagsan